We the best. Another one. تتعدى. Always remember, it's lion order. Lion! caawo waxaa la rasaaseeyey taliyihii hore ee ciidamada Niza Turyare. banaanbax waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho xaaladii ugu dambeeyay xaafadda Shirkole Marina iyo qeybo kale ayaad ku maqli doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aniga waa Maxamed Xasan YouTube-ka aad daawanaysaanna waa another one titacadda meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba maqalkayga iyo muuqaalkayga idin soo gaari doona niyad samii kalgacal ugu soo dhawaada waadna ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoda aan soo geliyo fadlan haddii aad ku cusubtaa ama ay ku tahay booqashadaadii koowaadna waxaan kaa codsanayaa daawad inaad subscribe dhahdo janalka gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyogana like saara waadna ku mahadsantihiin la jaristiina iyo la joogistiina sida caadadii dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub aan ku horeyne xaafadda Shirkole ayaa caawa banaanbax lagu taageerayo taliyihii hore ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John halka ay ka dhaceen taliyaha banaanbax lagu taageeraya ayaa dad badan oo dadka deegaanka ah halkaas ugu soo baxay waxay ku dhawaaqayeen kaligiis talis dooni meeno dowladda farmaajo dooni meeno muddo kordhin dooni meeno doorasho ayaan u baahannahay ayay dadkaasi ku qeylinayeen maalmihii la soo dhaafayba waxaa fariisimo halkaa ka samaystay Saadiq Cumar Xasan iyo ciidamo asiga daacad u ah oo isku fidiyaa la leeyahay ilaa iyo xaafadda Balaaksi caratuuriyo iyo waxyaalo badan ayaa halkaasi ay ka samaysteen difaacyo ay isleeyihiin haddii ciidamada dowladda federaalka ay weerar idinkugu soo qaadaan isaga difaaca waxaa halkaa gaaray habeena dhexdaas ah xildhibaanadii beesha habargidir ka soo jeeday Maad Salaad Odawaa iyo qaar kale ayaa halkaasi gaaray si ay ugu muujiyaan taliyihii xilka laga qaaday inay garab taagan yihiin taliyaha ayaa waxaa xilka laga qaaday kadib markii uu is-hortaag ku sameeyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lahaa kalfadhi ay rabeen in ay muddo kordhin ugu sameeyaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib taliyaha booliiska Xijaar ayaa xilka ka qaaday madaxweynaha warqad uu soo saarayna waxaa darajada looga xayuubiyey Saadiq John xuquuqdii ciidannimo uu lahaana halkaasi loogu joojiyey runtii dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in Saadiq John haddii lasoo weerar ay qaadan doonaan hubka ayna ka difaaci doonaan cid kasta oo weerar kusoo qaada wiilkooda ayna ku difaaci doonaan qaab beeleed Saadiq John deegaanka uu u cararay ama uu u guuray waxaa degan beeshiisa oo ah beesha reer Xaaji Saleebaan Saadiq John dadkii isugu soo bax halkaa waxay ku hadaaqayeen ama ay ku qeylinayeen bal ilaad arka Shirkole
waa arkayseen waxay ku dhawaaqayeen kaligii taliya dooni mayno hogaamiye kooxeed dooni mayno oo ay ugu jeedaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo run ahaantii cabsi xoogan ayaa soo wajahday maalmihii ugu dambeeyey dadka magaalada muqdisho oo qabay hididiilo wanaagsan iyo magaalada muqdisho ay soo dhismaysay ganacsiyada iyo waxyaalo badan iyo horumaro ayaa la gaarayay laakiin tan iyo markii dowladda farmaajo loo kordhiyey muddo 2 sano ah in ay sii joogto madaxtooyada villa Soomaaliya run ahaantii waxaa soo kordhaya in halkaasi ay ka dhici karaan dhiilo colaadeed in ciidamo iskoor imaad ay halkaa ka dhacaan ayagana musharaxiinta u taagnaa xilalka doorashada sanada 2021ka xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali kheyre iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa ayagana waxaa la sheegayaa in ay midba meel u guuray xasan sheekh maxamuud wuxuu degay ayaa la leeyahay mirinaayo sheekh shariif wuxuu degay xaafadda cc oo ay dadkiisu u badan yihiin xasan cali kheyrena dayniil ayuu degay ayaa la leeyahay halka cabdiraxmaan cabdishakuurna uu degay guriga cabdiqaasim sidaas ayay isku qaybiyeen ciidamo fara badan ayaa hadba soo gaaraya hogaamiye kooxeedyadaasi ama dadka musharaxiinta u taagan xilalka xasan sheekh maxamuud ciidamo fara badan ayaa u yimid sheekh shariif sidoo kale waxaa kale oo hadda xasaasi ah in caawa la xabadeeyey staafkii ama gaarigii uu la socday taliyihii hore ciidamada niza tuuri cabdiraxmaan tuuryare ayaa lagu xabadeeyaa leeyahay isgooska mirinaayo degmada cabdicasiis ama degmada kaaraan meesha ka tirsan tahay waxaa laga yaabaa in cabdicasiis inay mirinaayo labadaba ay macquul inkastoo aan si fiican u garanaynin halkaas ciidamada halkaas marayay waxaa xabadeeyaa leeyahay ciidamo lagu sheegay magacooda duufaan taliye tuuryare ama ninkii niza xilka kasoo qabtay taliyihii ciidamada niza tuuryare ayaa soo fariistay caawa live facebook wuxuu sheegay in asigoo gaarigiisa iyo staafka la socdo la garanayo lagu xabadeeyey marina wuxuu sheegay in uu u socday dad mas-uuliyiin ah uu booqanayay xasan sheekh maxamuud ayay isku heeb yihiin asigana markii la isku daro dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo abaabulka socdo mar kasta waxaa la filan karaa in dagaal ka dhaco maadaama ay musharaxiinta midooda musharaxiinta ay ka biyo diidsan yihiin in 2 sano ay sii joogto dowladda farmaajo saadiq john sidoo kale uu ka biyo diiday in la boobo xukun 2 sano ah marka dadka deegaanka cabsi xoogan ayaa soo food saartay maadaama 2 ciidan oo aan is ogoleen hadday isdhex maraayaan mar walba ka filo in laysku rasaaseeyo ay dad shacaba halkaa ku dhintaan guryo iyo hantina ay ku burburaan madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo maanta wuu safray dalka ma jooga caawo wuxuu aaday congo halkaas wuxuu caawo kulan kula leeyahay ayaa la leeyahay madaxweynaha congo madaxweynaha congona waa ninka hadda xilka la wareegay midooda africa waxaa laga dhigay gudoomiyaha ururka midooda africa bilayaasha bilaha ah shira farmaajo meelo kale ayuu sii aadi doonaa la leeyahay maxaa yeelay bisha soo socota waxaa fadhi leh midooda africa oo kaga hadlaya arrimaha soomaaliya xil kordhintiisana waxaa kasoo horjeestay beesha caalamka america ingiriiska ayaa diiday in muddo kordhinta aysan ahayn mid sax ah marka cabsi ayaa jirto xoogan dadka soo food saartay run ahaantii mar haddii xaaladdu ay tahay mindi ku taag wax kasto ayaa halkaa ka imaan kara arrinta waxaa loo bedelayaa qaab khabyaaladeysan maadaama qof walbo meesha uu ku xoog badan yahay ama reerihiis ay degan yihiin uu dabada gashtay hadda saadiq john shirkal ofishaala ayuu joogaa dadkiisna waxay go'aansadeen in ay igaarkooda ku agdhimo doonaan haddii xasan sheekh maxamuud mirinaayo galay dadkiisana way ku agdhimo doonaan sheekh shariifna cc sidoo kale dadkiisa ayaa ku agdhimo doona marka waxaa muuqanaysa in barakac ama burbur ay soo wajahdo mar kale dalka soomaaliya iyadoo la dhoodhoobayay muddana laysku hayay tan iyo dowladdii cabdullaahi yuusuf dalka waa laysku dhidhiibayay waxaana la filanayay in mar un la helo dowlad caadil oo xoog badan
oo dadka dhan ay ku dirsan doonaan laakiin hadda waxaa soo baxaysa mar kale rajada shacabka Soomaaliyeed inay mugdi ku dhacday xamar waa ogtihiin hadda dabaqyadii ugu dhaadheeraa ayaa la dhisay dabaqii ugu dheeraana Allah u naxariistay Cali Mahdi ayaa dhisanayay oo dhameystirkiis ayaa wax yar ka harsan oo 14 dabaq ayuu ka kooban yahay ganacsiyada dadka dibadda inta badan ka soo laabtay ayaa waxay ka furteen carwooyin marka waxyaalo badan oo ganacsi horumar iyo hididiilo laga filanayay haddii caawa dagaal ka qarxo magaalada Muqdisho waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay bililaqadii iyo dhibaatadii ayaana dib loogu laaban doonaa iyo qaxii hore loo qaxay dalka Soomaaliya allow nabad ku soo dabaal ciidamada iska soo horjeedana dhaxdooda biyo ku shub tan iyo kulantideena dambe waa tii tacad oo falanqeynayay waxyaalihii ugu dambeeyay caawa magaalada Muqdisho